lacagtii marka wuxuu yiri maandeeq hashiisii ninka cadow ka meeriyo ilmaha oo u maala meel seexan maaya waa inuu mariyaado oo colka soo markiciya waxa taala meel taal lacagtii macna lahayd dalka muunadiisii meel sare ka joogtana qashinka ku jirtay murti waa inaad hobaltood hiib u leedahay taariikh hog dheer iyo inaad helib ma sheegtaa hawada aad u maraysaa bulshada hoga tusaaleynta goobaha hufla isaga dhigoo lagu halaagmayo waa inuu hogaansho murtida hadiyadeeya dhaqankii iyo hidihii dabad haleeya harkii la tagaba hadduu hawl ka qabanayo ee uu anfaca horsado waa halan jirin mar haddii suugaantu iyo dhaqanku uu galo maanta wax ku hel waa eber weey war intii fidinaysa ee warfaafinta maanta xog ururin ku fogan farqi baa u dhaxeeya dadku aanay fahmaynin bal midkii ugu fiican farta aan ugu fiiqo waa barnaamijka Afiyaad iyo Fagaaraha kuwaas waasaas marka waxa keenaya gaabiska yimid abwaaneentii hore de wax yar oo daalay ajoog dad yar oo daalay ajoog biyuhu sitaan dadku hadii boqolkiiba 95 hadii dadku ay biyo doonanayaan hadaa tiraahdo wariya biyaha caaw ma doonanay galabtan doonanay warnaga aamus hadaan doonanay lagu moogto hirasita koox yar oo marka hirsito iska raacday yaa joogta hadda koox marka kooxdaas yar waxay ka joogan dadkii abwaaneynta dee dhalinyaradina waxaasay ku sii talax tageen oo dee qaar baa dibadda ku aadayo dee dalka ku joogo ku bariiseeyo dee arrinkaasuna waa hadda ka horan meeshaas meelba meel ii dhiibaysaa marka hadda ka hor waxaan arkay maxay ahayd dadka sidaas heesaha bililqaysta ama qof baa wuxuu leeyahay abwaanaan waxbaan curiyaa abwaanaan dee kala saar ma jirto moogta ninkii Facebook haystaa aaladu haystaa taageerayaal uu leeyahay tuu doono lamida taageerayaal helaya marka wuxuu duubayaa marka taxa igu soo dhacdo marka murti waa inaad hobaltood hiib u leedahay taariikh hog dheer iyo inaad helib ma sheegtaa hawada aad u maraysaa bulshada hoga tusaaleynta goobaha hufla isaga dhigoo lagu halaagmayo waa inuu hogaansho murtida hadiyadeeya ee haybad leeyahay bulshada ee bulshadu hadal la weydiido dhaqankii iyo hidihii dabad haleeya harkii la tagaba hadduu hawl ka qabanayo ee uu anfaca horsado waa halan jirin mar haddii suugaantu iyo dhaqanku uu galo maanta wax ku hel waa eber weeyte waa wax iibsanaysa dad dhan dhaqankoodii iyo soo jiroonkoodii iyo wax lagu yaqaanayaad iibsanaysa marka waxay u baahan tahay barnaamijkaas baraarujin waliba waxaan aad iyo aad ugu baaqi lahaa golaha abwaaneynta oo aniguba kamid ah waa wadnaa hawshaas runtii meel fiicanna waxay soo gaarsiiyeen oo haddaba sida wax yihiin hoyda lagu hayaa maahane waxaan isleeyahay waa ka dari leh marka golaha abwaaneentuna waxay gelinta xogaa way jirtaa abwan waxa jira gabay ka tirisay lacagta طبعا waa gabay dhaqanka la xiriirayo noqonaya gabagaas iyo qisadiisa iyo hadana la wadaagi leh waa mahadsantaa fiyaad horta markii la yiraahdo waxyaabaha astaamaha dalku iska leeyahay kamid tahay lacagtu calanka iyo ciidda iyo dadka iyo wixii kale siyaada wuxuu kamid yahay calanka iyo lacagta iyo loogada dalku iska leeyahay furaha iyo waxyaabahaas oo dhan waxay kamid yihiin wax dalku iska leeyahay kamid yihiin aan qof lahayn wax kasta ee bulshada ay wada leedahay bulshadu ay wada adeegsataan dhaqanka dadkaas oo iska leeyahay la ilaalinayo kamid yihiin waxa weey lacagta dalkana lacag ma laha ani maqaayad caawa hadii adoo ku jira shirkadaha isgaarsiinta mid kamid ah danto ama ay si uun wax ugu yimaadaan maqaayadaas kama baxaysid inaad in qolka ku damiinata maahan marka dal fadhiyo ma wax dollar iyo hawadaasan isticmaalayna dal ma fadhinaba dhaqankeena ma nolosheena ma fadhiso marka in hadana lala qabsado ee caadi iska noqotay ganacsatadii ay u bageen hadana ay ayaga ka heleenba waxyaabaha telefoonka ay ku sitaan yaaman hadda dareemay marka lacagtaasan arka marka dadku waxbay sadaqaysan jireen hooyooyinka iyo dadka waaridka iyo dadka waxbay sadaqaystaan dadka tabarta daran 5,000 iyo 10,000 waxba la sii jiray dee wixii meesha way ka baxeen wixii markay meesha ka baxeen marka waxa timid wixii dhan inay juq isku noqdaan marka oo dadkii xataa qofkii tabarta daraayo ama tuugsanayay dee qof tuugsanaya telefoon ma iibsan karo Soma
inuu waayo adeegii marka taas waxay ahayd marka lacagtii marka wuxuu yiri maandeeq hashiisii ninka cadow ka meeriyo ilmaha oo u maalaa meel seexan maaya waa inuu maryaado oo colka soo markiciya waxa taala meel taal lacagtii macna lahayd dalka muunadiisii meel sare ka joogtana qashinkay ku mooseen mamas iyo abeeska mugdiga isla joogan majimaha ku sideenoo dollarka minguuriyay maangaab ku naaxo dadka muudsanayo ganacsada ismooda hantidii ka meeriyay macnahaana ima dhicin aqligu waa madowya ma jara habawno ma Mareykan baan ilaahayow macbuudow maatidii habawdo agoontii ku maratay aqligii mar soo celi taasuna taasay ahayd oo aan lacagta uga hadlayay de ma jara habawno ma Mareykan baan hadda anagu lacag dollar oo waliba aan lacagtii qadaade dollar isticmaalna iyo EV-ga lacagtaas EVC-ga aan isticmaalna lacagta hawada oo tirada iyo dollarkaas aan isticmaalna dalka aad lacagtiisa isticmaasho noloshaada ku kala wadid Washington miyaan anagu ku xiranna gobol kamid ah taa aad noqonaysaa haddaad xitaa isu haysato inaad kamid ahayn de kamid ah waayo dollarku meeshu halka ka marayo dollarkii ka soo baxa kii dhacay waa ka tagaysaa kii waxa ayagu ay wadaan la sameeyay marka dalkaas aad ku jaan go'an in marka dhaqamadii oo dhan dhinac docka wareen ku dhaco saas waa qayb ka dhaqankii isbedel waxyaabahaas oo dhan talaan lacag lahayn wuxuu yahay lacagtu waxay kamid tahay dalka fadhiyadiisa kamid tahay waxyaabaha inuu dal yahay lagu qiimeeyo qiimeynta aad baa u mahadsan tahay abwaan waa ku mahadcelinay waayahay intaas ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkii fiyaad ee fagaaraha oo martin ugu ahaa abwaan Shariif Maxamed Geedi aad baa u mahadsantiin daawadayaal